shirmadaxeedka wadamada midowga Afrika ayaa ka furmaya biri oo xad ah magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya kaas oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha dawladaha qaradan Afrika. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa ka qayb galaya shirkaas iyadoo la filayo in madaxweynaha Soomaaliya gelinka dambe ee maanta ay u ambabaxaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya. shirka oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa looga arinsanayaa xoojinta nabadgelyada, la dagaalanka musuqa iyo argagixisada ee la dagay qaradan Afrika. shirkaas ayaa waxaa lagu casuumay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas Abu Maasin oo halkaas ka jeedin doono khudbad la xiriirta arrimaha Falastiin. sidoo kale wuxuu soo bandhigi doonaa aragtidiisa ku aadan go'aankii madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ee Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Yuhuudda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga ballaaran ee la socda ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxay halkaas kulamo kala duwan la filayaa inay la yeelan doonaan madaxda ka soo qayb galaysa shirka